wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland Sheekh Cabdirasaaq Albani oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland ayaa sheegay in 4,000 oo qof oo xujay Somaliland ay sanadkani ka baaqdeen gudashada cibaadadka xajka. wasiirka diinta iyo awqaafta Somaliland Sheekh Albani ayaa sheegay in ay Soomaaliya musuqmaasuqday qaybtii xajka ee ay Somaliland xaq u lahayd. wasiirku arrimahaasi ka hadlaya waxa hadaladiisii ka mid ahaa: waxaanu halkan la socodsiinaynaa shacabka reer Somaliland gaar ahaan iyo dhammaan dunida muslimka oo ay ugu horeyso boqortooyada Saudi Arabia in shacabka reer Somaliland muddadii Somaliland jirtayba ay kala kulameen xajka iyo cumrada gudashadeeda dhibaatooyin kala duwan oo si toos ah iyo si dadbanba ay ula badheedheen xukuumadihii kala duwanaa ee kala dambeeyey ee Soomaaliya, iyagoo oo carqaladeeyey oo ishortaagay in shacabka reer Somaliland helaan tiradii xujayda ee ay xaqa u lahaayeen oo ay maamuli lahayd wasaaradda diinta iyo awqaafta ee jamhuuriyadda Somaliland. waxayna isla markaa ku tallaabsadeen arrimo dhowra oo keentay in dhammaan shacabka reer Somaliland ee tiradoodu gaadhsiisan tahay 4 milyan iyo dheeraadka ay ka baaqdaan inay sanadkan ka qayb galaan gudashada rugniga shanaad diinta islaamka ee ah xajka. waxaa hore muddaba dowladda Soomaaliya ku dadaalaysay in la dhimo tirada xujayda ka xajiyeysa shacabka reer Somaliland, waxaana arrintaa markhaati cad u ah inaan ilaa saacaddan oo aan warkan shaacinayno qof qura oo xaaji ah oo fiisa xaj ah oo wasaaradda diinta iyo awqaafta ka soo gaadhay dowladda Saudi Arabia aanay jirinin. tiradii Somaliland lahaydna xukuumadda Soomaaliya ku takrifashay oo ay u qaybiyeen dad ganacsato ah oo suuqa Muqdisho ku dhex iibinaya. haddaba dowladda Somaliland iyo shacabkeeda oo isku duuban waxay go'aansadeen oo aan halkan ku caddaynaynaa kow in dadka yaga iyo shacabka yaga sanadkan aanay xajiyi doonin duruufaha aanu soo sheegnay awgeed. laba, waxaanu halkan ku cambaaraynaynaa takrifalka iyo siyaasadaynta ee dowladda Soomaaliya kula kacday arrimaha xajka. saddex, waxaanu mar labaad baaq u diraynaa dowladda boqortooyada Saudi Arabia iyo dunida muslimkaba in ay si degdega arrintan u soo farageliyaan, maadaama 4 milyan iyo dheeraad qof oo reer Somaliland ahi dadkii ka xajiyi lahaa maanta la iska hortaagay arrimo siyaasadeed darteed, taas oo ay ku kacday dowladda Muqdisho ka dhisan.